Soomaaliya waxaan idin sheegayaa waqti waxaan ku jirnaa dadka ugu liitay ee ugu nacasaysnaa ee ugu xumaa ee ugu karaamada xumaa ee ugu baaba'sanaa ay caayayaan dadka ugu sharafta badnaa xilligaas ayaan ku jirnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa laba qof markay isqabsato isdagaalaan haddii labada qof mid kamida uu ma aragtay mid kale oo saddexeeya hadduu u qoslo u riyaaqo qosolbahii la waagalaahay dhahan marka dulmiga iyo aflagaadada iyo cayda ninka jarmalka jooga ee ilmo magafa ah ee ilaa Soomaaliya soo tahriibay meeshuu wax qabsan lahaa camal wanaagsan uu samaysan lahaa oo lafiisa daryeeli lahaa ninka u soo galay sheeg YouTube intuu channel furtay ninka soo aflagaadeynayo dadka meeytida ah Umar Dhuule oo sharaf iyo karaamo Soomaali ay u hayso ninka uu ka baxsan waayay oo maanta meeyti oo marxuum oo naga hooseeyo ninka uu ka baxsan waayay nasabnimada sheeganayo ninkaasuu karbaashkan ku socdaa karaahiyo ayub kabtan ayub oo la baxay laakiin karaahiyo ayub aan leenahay ninkaas muuqaalkiisa xalaal lay soo diray markii lay soo diray Facebook aan soo dhigay haddii aan ka aamusno waxay noqonaysaa qosolbahii la waagalaadiyo aamusnaasuu raalli ahaasuu isu bedelayaa inaan raalli ka nahay ay isu bedelaysaa marka karaahiya ayub nasabnimaad sheegatay dabcan nin adiga reerahaaga oo isku qabiiltiin isku jirooni aad tihiin ayaad la hadlaysay nin wariyaha xiran ee soo daayad lahayd ninkii aad la hadlaysad nasabnimada ku sheegaysay iyo adiga nasabnimada aad sheeganaysa reernimadii waxay kula gashay iyo sida Umar Dhuule iyo hoos u dhigida Umar Dhuule oo aan maanta adduunka dul saarnayn oo naga wada hooseeyo Umar Dhuule Allah yarxamar raaximiin waa marxuum naga hooseeya anigu Umar Dhuule kuma soo gaarin oo Ilaahay ima qorin aan life arko ama aan barto laakiin dadkii yaqaanay ayaa maanta in badan u nooshahay qof sharaf iyo karaamo iyo cisi Soomaalidu u hayso ayuu ahaa aniga waxaa marka nasiib u yeeshay Umar Dhuule maadaama aanan arkin inaan wuxuu dhalay bartoon arko adduunka intaan safraayay oo aan adduunkaas aan maraayay ama aan ummad Soomaaliyeed aan marti u noqonayay dadkii ugu sharafta badnaa ee ugu qiimaha badnaa ee loo martiyo haddii Soomaali nasabnimo ay sheegan jirtay loo martiyo oo walaaltinimo iyo xabiibnimo iyo Soomaalinimo iyo kalgacal iyo ehelnimo yaqaanay number 1 ilmo Umar Dhuule ay noqday hodan Umar Dhuule iyo Maxamed waxaan isku soo baranay jarmalkan ugu martiyay maama sahran intayna la joogtaa qadrana xamaray joogtaan ka wada xiriirnaa intaasaan ka aqaana ilmo Umar Dhuule inta kalena isbaran doona Allah xifdiyo alasaan nasabnimada Soomaalidu ay ku faanto anigu nasabnimada Soomaalidu ay ku faanto kama arag kuwa nasabnimada ku faanaya nasabnimada ilmo Umar Dhuule ka arkay kuwa aan qabiil inay lafweyn yihiin sheeganayo oo aniga ay baaranayaan waa soo arkay oo inay wax ii geysto dhibaateeyaan jecel marka jarmalka waxa kula joogto karaahiya ayubow hodan Umar Dhuule jarmalka kula degan oo dhowr iyo 30 sano degan waxa la og yahay oo dad badan ay og yihiin dadka aad yasayso aad qabiiladooda durayso oo Umar Dhuule oo meeyta ah oo naga hooseeya aad caynayso yasayso dadkaas dadka ay ka dhasheen oo waliba ina Umar Dhuule maanta nooshahay ay joogto jarmalka noocaago miiran inay inta u imaadeen qabiilkaaga xifdisi sharciyan rabnaay inay dhahayeen oo soo muteen dadka ay weydiisanayeen inay qabiilkooda xifdisiyaan dadka qaarkood waa dad ma aragtay ii sheeg jecel inay aarsadaan jiq markay uga dhigeen xataa ina Umar Dhuule ma aha dadka abaalka sheegto hodan inay Soomaali in badan jarmalka joogta caawisayaan ognahay sharafta iyo karaamada iyo Soomaali jacaylkaana aabaheeda ku dhalay ummadda Soomaaliyeed dadkaas inay karaamo iyo sharaf ay u haayaan
ayay naga mudnaayeen nagama mudna inaan karaahiyada noocaan oo kala markuu soocayo aan aamusno hodan cumar dhuule facebookeeda waa loo diray waa loo dhigay inboxka loo dhigay fiiriyaa ninkan aabaha iyo ima aragtay nasabiyadiina caynaya nasabiyad baad ku faantay waryaa waxaa tiri ninka gudoomiyaha ka ah ee Puntland Cabdirashiidow ama nin nasabaho in adeerkayo in hebel hebelaho ayeeye baydan islaamo qarniyadii hore inta dhintay lafooda abar wax ka waayay inta kacsatay aad tiri ama ninka ayeeye baydan heblaaye ay dhashay noqo oo nin nasabaho reehebel noqo ama in Cumar Dhuule boon ah noqo horta boonnimo iyo nasabayad xumo adigay wajigaaga ku taala because midgaan iyo nasab dhiman waxa ah shakhsiga xun like you iyo ka jannada laga waayo waryaa nasabiyadaad ku faantay iska daa adigaagaas aragga xun iyo kan aad leedahay Cumar Dhuule ku dhalay ayaydaadii sanaad iyo awgaagii sanaadan Cumar Dhuule iyo wuxuu dhalayba gaareen waryaa aniga maanta markaan xalay aan soo sheergareeyay matagaagi dad baa ay soo wacay ugu dhahay kaas karaamo ma lahan hadaa u jawaabto alashan qof dhintay oo meeyda ka soo qaad ha u jawaabin sababta lagu jawaabayaan ku sheegaa lo aad tahay oo doqon baa taho hadii laga aamuso inaad saxantaad isu maleeyay hadii laga aamuso inaad saxantaad isu maleeyay marka Cumar Dhuule waa marxuum waa qof naga hooseeya haddaad isleedahay ilmaha Cumar Dhuulena miiriyaha ma soo galaan ama aad tunjileecsanayso isleedahay tunjileecso brother ilma Cumar Dhuule aniga waxay yihiin walaalahay ila dhashay camal inta aan walaalkay ila dhashay u sameyn lahaa ayaa ilma Cumar Dhuule u sameynaya oon ugu tastaa walaalahay saan ugu tastaa waryaa wax dhintay baa tahay jarmalkaad joogtaa maalinkaad soo galayso youtube-kaad aflagaadeynayso Cumar Dhuule oo kaa hooseeya ama qamri dhacayaad cabtay ama magafa wax kugu soo sameeyo waxba ku dhiman ama markaaga horaadan ba aqli u dhalanba because qof aqli leh ama intaasoo kale oo dadnimo ay ku jirto shakhsid mootan oo meyti ah intuu u soo fariisto public oo nin kale asagoo oo amaanayo waliba waxa tiri dadnimo xumadaada waxa tiri oo ku jira hadalkaaga waryaa waxa tiri haddaad Cabdirashiidow aan ku gafay oo in Cumar Dhuule kugu sheegan raalli ahow war waxa qashinka ina gumeed adaa ah abna qaanawas adaa ina gumeed ah waryaa ina gumeedka aad sheegtaan Soomaaliyeed ka soo kala ah soo ummadda Soomaaliyeed hal midan idin sheegaya ninka asaga ah waxaan halkan uga baaqayaa aniga live-kan wallahi iyo billahi iyo tallahi ninka xalwa ka seexan waay waxaan halkan uga baaqayaa in allaale inta media youtuberada oo soo gasho I will make sure horta aniga karaahiye ayuubow I will make sure aan ku dhahay inaan geed gaaban iyo geed dheerba u fuulo dadka youtubeyada dadka ka xiray haagta ku sameeyo inaad dib ka soo bilowdo adiga oo karaahiye ah inaad dib ka soo bilowdaa balan igu ah waxaan u sheegayaa dadka media soo gala oo especially youtube leyda ah sidoo daahir calasow kale daahir calasow ninka asagoo ku garab fadhiyo oo qabiil kaaga sheekeynaya oo aad garab fadhidaan waa arkay dabcan waa istaqaanaan daahir calasow dulmiga saan oo kala ah ina ka soo hadashay waxyaabo ka lacib saqiirsan iyo siyaasad iyo wax oo iska easy ba ka hadashaan this bullshit ina ka soo hadashaan waay waxaan halkan uga baaqayaa Cabdifataax Bowdheriyo waxaan ma aragtay aan macno lahayn oo dhibka ninkan u geysanayo kale aan dhamaynba waa isla soo kala dilaacisa Allah ku tusina soo kala dilaaciso Yacquub abtigay Yacquubow ninka asaga ah inaad daacad ka noqotaan oo aad ma aragtay inaad nasabka la sheegayo maanta kala laga rabaa qofka inuu nasabiyada uu sheeganayo oo muujiyo ninka la yiraahdo Yacquubna waa u baaqaya ninka la yiraahdo Ayub Carlosna waa u baaqaya wax allaala wax Cabdirasaaq Kabayar my brother u baaqaya ninka qashinka ah dulliga ah in allaala iyo inta soo gasho waxaan u baaqayaa walaalkay ii sheeg sahal joker kulligiin inaad soo gashaan Cabdiqaadir Boos inta aan meeshan ka magacaabayba hadaa ka dhiidhin weysaan caayada Cumar Dhuule ah inta indhiina ku aragteen dhagihiina aad ku maqasheen aad ogtiin Cumar Dhuule wuxuu ummadda Soomaaliyeed u yahay aad ogtiin qiimaha uu leeyahay noocaas baktiga oo indhaha huunyada leh inaad ku fiirsataan wuxuu yahay u sheeg weysaan oo waxaan ka xumahay in allaale iyo inta YouTube shaqo ku leh wax qaribta dadka YouTube-yada ka xirta ma milyan ku meereysaysay
lo adaanoo kalaa u baahan in lagu meeraysto youtube-kiisa la xiro nasabna waxba kama taqaanid nasabada Soomaalidu ay sheegatana waa nasabiyad liidata waxaan idin sheegayaa ninka asaga ina gumeeda asaga waji boonka uu sheegaya leh wajiga iyo afka kugu yaalo inaad fiirsay eedataada Cumar Dhuulo mootan aadan caayin waryaa saare Cumar Dhuulo halkaan ila joogtaa waa hooyo fankay ku jirtaa fanaan ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka Soomaali jecel kuma jiro kulligeen fanka kuma jiro fanaaniinta kuma jiro hoodan Cumar Dhuulo warkeeda iska badaaba inta Soomaalinimada iyo walaaltinimada u taagan yihiin waa dad karaamo iyo sharaf umadooda kula dhex jira cidna ma dhibaateeyaan qabiil uma ololeeyaan way idinka xishoonayaan istubidiin baatiina inta xumaanta ka shaqeyso dhan xumaanta waa ka shaqeysaan wanaaga ka shaqeeya oo this bullshit hadaa isleedin ninkan waa baaba oo in wax laga dhidhiga ma aha wax uu noqonayo ma leh Captain Ayub adiga iyo ayaydaadi sanaadba nasabiyada aad sheeganayso Cumar Dhuulo adiga iyo meesha ka soo askumantay Cumar Dhuulo kaliya uma dhigantaan istubidaana tahay jiirhaan ku weynaada tahay sababta waxaan ka keenayso waxa waaye labadii waabeed ku dhalateed ku kortay baadiyaha ahaayad ka timid shufada adiga aad ilaa 7 ka tirsata bisaad arki jirtay maadan arkin Soomaali kale iyo raasa rasuul kale iyo qabiil kale oo Soomaaliyeed maadan arkin oo aqoon laan baa ku haysa jiirhaan ku weynaada tahay taasaana ka keenayso haday habar ku dhashayna waa aniga iyo adige balana ku soo bareero ku soo gal Facebook hadaan cagaha ka tumin oo aadan YouTube ka soo bilaabin ana ay dhashay ilma Cumar Dhuulo hadaa isleedahay media ma soo galayaan dadka anigu aan ugu horeeyo ee damiirkoodu shaqeynaayo ay ilma Cumar Dhuulo kaaga soo hormaraayo maantana hadaad meel aad joogto ma aragtay inta lagu soo qabto surka lagaaga istaago waad arki lahayd in wax laga qaadi kara in kale laakiin jarmalka joogtaha isleedahay karaamo iyo sharaf iyo cizo ay naga mudiyeen ilma Cumar Dhuulo iyo inta aad ma aragtay maal Ilaahay kan ku takrifalaysaan iyo nasabnimada aad sheeganaysaan wax aan nasabka ogtiin mala Soomaaliya kulligiina gulgul dhashaya hadaad waxaan qashinka kale iska celi weysaan waa idin salaamaya ilma Cumar Dhuulo cisi sharaf noogu noolaada Soomaalida anoo miirana ku jira inta ka xumaataya ka badan geedkan baqtiga oo wajiga hunyada leh boqolkiiba boqol raali ahaada waa idin jecel lahay dhashi Cumar Dhuulo waryaa Soomaalida marka qof oo Cumar Dhuulo dhalay qof Cumar Dhuulo dhalay ama gabar ama wiil wuxuu doonaa ahaade markii Soomaalida ay isbartaan waxay dhahan Cumar Dhuulo ma dhiman ee uu dhuntay dad saa u sharaf badan ay Cumar Dhuulo dhalay waxaana lagu soo abaabiyay Soomaalinimo iyo Soomaali jacayl ee lagu ma soo abaabin reehebel kan ku riix iyo reehebel kan ku nac waxaana lagu abaabiyay midgaanka aabahood wuxuu ku abaabiyay magaca midgaan waxa uu yahay inuu yahay qofka xun inuu midgaan yahay lagu abaabiyay ilma Cumar Dhuulo aabahooda ku abaabiyay nin isku kalsoon karti badan Soomaali Ilaahay akhlaaq siya dad jecel buu ahaa jacaylkii uu ku dhalay ayagana way haystaan wayna ka muuqataa inta ila taqaanana way ogtahay fanaaniinta Soomaaliyeedna waa dadka ugu sarafka badan intooda fanka ku jirto waryaa stupid baa tahay ina gumeedka aad sheegaysana adiga iyo awowgaagi shanaadna ma gaarayo Cumar Dhuulo stupid baa tahay qashin nasabiyada aad sheeganaysidna wax ka jira malaha weligaaba xabad ka tumo ninka aad leedahay inuu Cumar Dhuulo ku dhalayaad noqonaysa ama nin reebel noqonaysa waryaa wiish inuu Cumar Dhuulo dhali lahaa Cumar Dhuulo waa celebrity qof la yaqaan oo Soomaali oo dhan sharaf iyo sumcad kula waay wiish inuu Cumar Dhuulo dhali lahaa laakiin Ilaahay uma qorin Cumar Dhuulo dhalo stupid baa tahay dhiigaana nagu karisay waana inoo Facebook iyo YouTube inta aan ka saarnaa ballan nagu inta qofeen soo magacaabay waa inaad kulligiin ka shaqeysaan ninkaas talaabo looga qaadi lahaa dadka noocaan oo kala oo karaahiye Ayuub oo kala ahna haddii aad yastaan ama aad ka socotaan ogaada raalli ahaashay ka turjumaysaa in raalli laga yahay ayay ka turjumaysaa waa idin salaamaya cisi sharaf igu noolaada ilma Cumar Dhuulo annaga walaalooda annaga jecel Soomaaliya oo dhan baa jecel kuumana soo